بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبة قالية دمان سو دوادا مقعيga waa Cabdicasiis Cabdullaahi Cusmaan social media waxaan kusoo galaa Cabdicasiis Sprash marka waxaan rabaa insha Allah in halkan kusoo gudbiyo koorsadaan AutoCAD runtii weliba gaar ahaan AutoCAD 2024 aan isticmaali doonaa anagoo markaas ku darowgareyn doona 2D floor plan ma fahantay runtii koorsadaana waxaa inta badan ay quseyn doontaa ardada barata kulliyadda engineering gaar ahaan kuwa civilka iyo sidoo kale kuwa architecture-ka iyo ciddiga markaas rabtaba way qaadan kartaa u horey marka AutoCAD qaabkan u soo furo ay sidaan isoo muuqato asal ahaan waxaan rabaa in aan u horeyn aan ka bedelo unit-kan isticmaali lahaa horta u horeyn unit-ka inta aan galin waxa yar oo introduction ah aan ka bixino AutoCAD-ka iyo sida ma aragtay uu muuqaal ahaan u yaalo asal ahaan marka la soo furo AutoCAD-ka marka la soo furo qaabkan ayaa ku soo muuqanaysa sidoo kale marka kor fiirisid waxa ku qoran home tab insert annotate waxyaabo soo lamid ah kulli sidoo kale isla home tab waa meesha ugu weyn shaqada ka dhici doonto marka la sameynayo ha noqdo nashqad waxyaabo soo lamid ah waa meesha ugu badan shaqooyinka ka dhici doonaan sidaa darteed home tab isaga marka wuxuu leeyahay dhowr panel dhowr groups Soma okay home tab marka tago halkan waxa ku qoran draw panel waxa ku jiro ay line ama ay shape arabtid inaad draw gariis halkaas ayaa ku jira marka ha noqdo line polyline circle arc rectangle whatever aad u baahan tahay inaad draw gariisid halkaas ka heli doontaa okay waxa soo draw gareysa marka hadaa rabtid marka inaad modify ku sameysid waa inaad tagana home tab then aan tago modify panel la tagaya kadib waxaan ka dooranayaa ay shay u baahanahay move rotate trim copy mirror kulli waxaas wixii la mid ah okay kuwana waa yacni textigi iyo layerski waxyaabahaas ay markaas la mid yihiin okay aan hore u soo socdo marka cashirkan aan sii guud galo cashirka koowaad ama lesson 1 uu hore marka waxa rabaa marka inaad iska xaqiijiyo unit-ka aan rabo marka inaan isticmaalo keyboard-kayga waxaan ka qorayaa marka UN Soma kadib marka panel-kana ii soo boodaya isla markii marka waxa leeyahay enter marka dhaho mar kale marka waxa ii soo boodaysa marka daaqadan marka waxaan ka bedeli doonaa unit-ka aan rabo iyo waxyaabahaas kulli ayaan halkan ka bedeli doonaa qaybta koowaad decimal sideeda u deenayaa sidoo kale precision-ka meesha ku qoranta hoosteeda iyadana sideeda u deey sidoo kale inch meesha ku qoranta waan bedelayaa millimeter ka dhigo centimeter ka dhigo meter ka dhigo adeeg ku xaran tahay mid gaartid dooro aan hadda waxaan dooranayaa laakiin meter ayaan dooranayaa kadib waxa leeyahay inta international ku ahaato kulli wax kale ha bedelin khalaas dan waxa leeyahay okay marka sidaas tahay kadib marka waxa rabaa marka inaad draw gareeyo 2D floor plan Soma 2D floor plan dabcan wuxuu ka koobnaan doonaa intaas oo layer exterior wall waxaan u qaadan doonaa layer gaar ah interior wall waxaan u qaadan doonaa layer gaar ah window and doors waxaan u qaadan doonaa layer gaar ah shay walbaba aan ku isticmaali doono 2D floor plan-kaas layer gaar aan u sameysan doonaa sidee marka okay anigoo joogo marka home tab then waa soo baxay waxa imaanaya layers panel kadibna waxaan ku dhufanayaa layer properties okay ila soco layer properties ku dhufanaya marka ku dhufta kadib marka ay daaqadan ii soo boodo halkaan aad tagaya marka meeshaan ku qoranta new layer ama waxa dhigi kartaa alt plus n ama alt n haddaan click siiyo isla marka waxa ii soo booda layerka cusub aan rabo marka inaan magacaabo wuxuu leeyahay marka layerka magacaabo waxa leeyahay marka exterior wall waa midka koowaad dabcan waa midka koowaad aan rabo inaad draw gareemo wuxuu noqonayaa exterior wall good halka marka waxa ku qoran color Soma okay kitir horta aan soo arko inta ku qoran color haddii aan ku dhufto hadda waxa ii dooran white haddii aan ku dhufto isla marka waxa ii soo baxay daaqada aan ka bedeli lahaa colorska okay aan ku dhufto marka halkan salaano kale ama color gaartid dooro ana marka waxaan dooranayaa this color oo kale this color ayaan u dooranayaa exterior wall-kayga kadib marka waxa leeyahay okay line-ka aan rabo continuous aan rabo inuu noqdo dabcan waxba ma rabo inaan ka bedelo meeshaas laakiin line width-ka waxa rabo inaan ka bedelo waan ku dhufanayaa marka ku dhuft kadib isla markii daaqada u baahan tahay ku soo booday kadib marka cabirka aan ka rabo marka wuxuu noqonayaa waa 0.3 millimeter ayaan rabaa marka inuu noqdo line width-ka kadib marka waxa leeyahay okay mar kale waxa rabo inaan soo geliyo interior wall exterior wall sidaas uga dhamaaday interior wall idan ama magacaabo waxa leeyahay marka interior wall okay isku color ma ka rabaa maya isku color ka ma rabo ku dhufo
kadib marka waxaa ka dooranayaa midka hore wuxuu ahaa mid zaaid tiq u ah laakiin kan xogaa midkaasa dooranayaa then waxaa leeyahay okay line weightka kan yes isku mid ayaa rabaa inay i noqdaan laakiin kan waa bedelayaa kan waxaa ka dhigaya marka 0.25 oo millimeter ah then waxaa leeyahay okay sidaa markay tahay kuwa kale waa la mid dabcan hadba mid walba u baahan tahay qaabkan u soo mari doontaa mar kale aan ku celiyo waxaan dooranayaa haddana doors and windows doors and windows doors and windows okay isku color ma ka rabaa maya kama rabo isku color waxaa rabaa inay color ka duwanaadaan kuwa kale okay green kana dooranaya markaan joogo dooran window okay yaa leeyahay laakiin line widthka okay 0.25 waa okay mushkilad male okay line tape-ka continuous ahaado good intaas waa okay sidoo kale marka aan soo geliyo layer kale okay layerka marka maxaan dhahayaa waxaan ii doonaa kan waa access waxaan leeyahay access this one access halkaan ii fur okay marka furtid kadib waxaan dooranayaa red oo mafahant red ayaan dooranayaa lineka marka continuous ahaado laakiin waxaa rabaa maanta inaan bedelo line tape ku dhufo continuous ku dhufo kadib halkaan kuma jiro nooca linekan u baahana meesha kuma jiro marka waa inaad soo gashto waxaan leeyahay marka load kadib halkaana ka raadinaya marka soo ma halkaana ka raadiyo soo soco waxaa rabaa marka dash dot 0.5 majido dash dot 2 dash dot 0.5 click c then waxaa leeyahay okay hadda waa iisoo galay then asiga dooro kadib waxaa leeyahay okay marka okay dhaho shay walba u baahantay marka qaabkaas u gelinayna sidoo kale marka waxaa u baahanaa staircase soo ma tan waxaa leeyahay staircase waxaa leeyahay marka staircase aan dhaho staircase-kayga marka waxaa rabaa marka inay ii noqoto tusaale ahaan color noocaas oo kale ah color noocan oo kale ah ayaa ka rabaa marka inay ii noqoto okay laakiin line weightka waa okay 0.25 good waaye laakiin line tape-kan bedelayaa waxaa ka rabaa continuous solid inay ii noqoto then waxaa leeyahay okay khalaas marka ka dhamaado kulli ay layer u baahantay marka soo habaysteed kulligooda soo create gareysid then iska xir marka meeshaas majida oo close iska dheh good okay marka insha Allah cashirkii koowaad halkaan ay kusoo gabagabeynayna waxayna balanaa insha Allah cashirkii labaad soo dhawaada mar kale